iyo waxaad ku dhaqmaysa waana isku mid yihiin way ama qof muslima inaad project ka dhigato musalsal aad fiirsato min xagga fadhiiso tirada quraanka adiguna aad akhrinaynin iyo been aad ka abuuratay maalinta qiyaamada naar baa lagu cunsiinaya xoolaha aad laqlaq إله الكون قد زادت ذنوبي وفي العصيان قد تاهت دروبي فألهمني طريق الحق دربا waxaan quraanka inuu ku daaweeyo male dadku markay soo daalaan waxay ku leeyihiin dhakhtarka soo daalno wax kasta ka soo daalan bal quraankana hana lagu aqriyo ma quraankana hana lagu aqriyo ma aha taas waxa weeye marka hore intaadan gaalka aadin quraanka u tag gaalka inaad u tagto laguma diidana laakiin kuma daawadi runta hayda quraankaana maxaa yeelay daawada aakhiradana saga daawada adduunkana saga bismillah ma iska furi karaa waxa la yiraahdaa ma jirto ragga ilaahay wuxuu dhigay xilaha orida iyaga dalqadeeda haya laba waa mid uun markayna su'aasha ku dheeraanin in ninka ay ka dhamaysato oo dalqada ay ka iibsato waxa loo yaqaan fiqiga islaamiga ama shariicadeena al-khulu' waxaa hore loo arkay ma walaalaha ahlu khayrka tabliiq iyaga u socda oo khuruujaya oo dacwo wada ayaa waxa dhacday waxay ka hor yimaadeen naag ku dhagan a'uudu billahi minash shaytaanir rajiim waa noqdeen haddana waxay ka hor yimaadeen laba nin isku dhagan a'uudu billahi minash shaytaanir rajiim kadib waxay arkeen baa nin iyo naag isku dhagan alxamdulillah مصائبته أيها كلا ير محايا الشر بعضه أخف من بعض ويكلا فضودها بإسليه يعني نين وحكر هذه ناقنا وحكر هذه والله بشو لكن مركي أركان نين ناق وما لسه جوج الحمد لله بعدين مرة دي بعرك كل عظيم امرأة نين هداد أركتون نين رجعة ورجع آخري وحوي هوني ونكسم بكذا بيسا هذا أركت نين رجع أساق كهرين هوني بالله هرتيوي معناه أساسا بيش كل عظم مركا المرأة الصالحة وحكنا الذهب كنكاس ستة أما المرأة السوء نوحي عند الرجل الصالح مثل الحمل الثقيل على الشيخ الكبير وبيدأه وعليس وين ماذا حلقة صار كذا لقى صار وكالة أيوة هو أنت مركا تهوني لبضن waxay ilmaha barayso iyo waxaad ku dhaqmayso waana isku mid yihiin way in telefishinka aad shidato oo musalsal aad fiirsato ilmiina xaggaad fadhiiso oo tiraada quraanka akhri adiguna aad akhrinaynin waa arrin khatar weeye وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه ما دونيو إن خلافه وحا معناها أني كرهي بل وذا فربنا وناقصين بعد كم مشغول إسا مثلا هذه هوين تقول كذا جوكتا يكون ده شو أخبار هذا هذا إنترنت إنه جنبه هو علمي كل بكتاب كاردمه كل بكتاب كاردمه واحد كم مشغول إسا إن التلفون ما أنت دن أدك تهايسته إني تي في إذا ما أنت نهار فرد مسلسلات أنا نفع ولا حين يكون مشغول شو reer caruurti way waalidkii way fiirsanayaan marka arkaan waalidkii cilmi ku mashquulsan isaga laftiisu ku mashquulaya waxbarasho jacayl haddaad dhanka mawjadu u socoto u dabaalato waad fududaanaysaa waayo biyihii baa ku sido isku dhan baa u socotaan marka dabaasha waana dheeraynaysaa horena u daali maysid biyahana ku sidaya dhankii aad u socotayna u socdaa waxaa la mid ah markaad biyo isku afkaartihiin iskuul isku afkaartihiin suuqa isku afkaartihiin aad joogto dhankaasaa wada dabaalanaysa waxaad ku socotaa meel yaqiin ah rasmi aad u socotaa meel cayaar lahayn oo yaqiin aad ku socotaa sidaa darteeda hadda tawbada wanaaji dhallinyarnimadaada ha ku kadsoomin caafimaadkaada ha ku kadsoomin xoola aad haysata ha ku kadsoomin nicmada alla subxaana watacaala ku siiya ku kadsoomin oo waxyaalahaas dhan u adeegso alla subxaana watacaala rallihiisa gaaritaan cudurka Soomaalida maaragtay qabiilku qofkii isagoo garanaya war dadkan islaynaya qabaa'ilka ee muslimiinta ah inay fidna tahay waxan kani ayaa maxaa ku khasbaya waxa ku khasbaya caadifadii qabiilka ka xoog badnayd ayaa ku khasbaysa ilaa marka dambe khayrka iyo sharka muslima sidoo kale ee aad mushaar ku qaadatid ama qof muslima inaad project ka dhigatid ee xoolaha aad ku cuntid حتما حولها سأت كون تيقفك مسلم كا شرفتيس إيا بين أت كأبورتي مالنت قيامة النار بالغ عنسين إياه حولها أدلق لقيسد قيامة النار بالغ لقيسة أي سو بدليا
haddaad dhar ka gadatid ama gaari aad ka gadatid adduunyada maaragtay qof muslima projecti aad ku qaadatay iyo xoolo aad ku cuntay inaad jaajuustay isaga wax u dhibtay sharaftiisa been aad ka sheegtay ee xoolo aad ku qaadatay maalinta qiyaamada labis naareed baa lagu gelinayaa